hadday tahay daawada markii kuugu horeysay fadlan subscribe-ka noo saar gambaleelkana on ka dhigo si aa u hesho fiidiyoyadeena cusub haddaa horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay fadlan dhiirigelinta like-ta commentiga usii sheergareynta walaalaha kaleente iyo kheyr la wadaagida waa xaggaaga insha allah waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo ciwaan aada iyo aada muhiim u ah wax badan ay ka faa-iidi doonaan walaalaheena ciwaankeena ama toobigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxtarka huruuda iyo xanuunada ay daaweyso haddaba aan u gudagalna toobigeena waa maxay huruud ama waxtarkeedu goorme ayaa la ogaaday huruudda oo afka qalaad lagu yiraahdo turmeric ama kurkum ayaa daawo ahaan loo isticmaali jiray kumanaan sano ka hor dalalka India iyo China dhowrkii sano ee ugu dambeysay ayay saynisyahanadu iyo cilmi baarayaasha casriga ah ogaadeen in huruudu tahay daawo dabiici ah oo lagula tacaali karo xanuuno badan sidaas la ajligeed xanuunada lagula tacaali karo ee culimada ama cilmi baarayaasha ogaadeen waxaa ka mid ah niyad jabka huruudda waxay daawo u tahay niyad jabka iyo diiqada waxaa arintaasi lagu ogaaday daraasad lagu sameeyay 60 qof oo qabay cudurka niyad jabka ee loo yaqaano major depressive waxaana la arkay inuu huruudda ay ka waxtar badan tahay daawada ugu caansan adduunka ee niyad jabka loo qaato hurbiye anti-inflammatory waaye huruudda maadada kurkumin ee ku jirta huruudda waxaa hur ama lurbiyo ugu awooda badan waxay dhinaca awooda la mid tahay daawooyinka hurbiyaasha sida aspirin iyo ibuprofen maxaa kaleento xanuunka kaleento ee daawo u tahay waxaa waaye maareynta lafa xanuunka maadada kurkumin ee ku jirta huruudda sida kor kusoo sheegaynayba waxay lurbiyaha ugu awooda badan waxayna yareysaa kaarka iyo garaaca lafaha daweynta kansarka sida lagu arkay daraasad la sameeyay maadada kurkumin ee ku jirta huruudda waxay dishaa unugyada kansarka waxayna ka hortagtaa koritaankooda waxay si aada ula dagaalantaa kansarka naasaha kansarka mindhicirada kansarka caloosha iyo kansarka maqaarka ku dhaca haddaba xanuunka kaleenta ee la tacaasho waa maxay huruudda maareynta macaanka huruudda waxay yareysaa sonkorta dhiigga waxay awood siisaa hormoonka insulin huruudda waxaa loo arkaa daawo dabiici ah ugu fiican ee cudurka macaanka daraasad ay sameeyeen European University waxaa lagu sheegay in huruuddu ay 400 oo jeer ka awood badan tahay daawada ugu caansan ee loo adeegsado cudurka macaanka gaar ahaan nooca labaad ama type 2 ee loo yaqaano metformin haddaba cudurka kaleenta ee xanuun baabiyaha u tahay huruudda waa maxay daweynta xanuunada caloosha ayay daweysaa huruudda tijaabooyin lagu sameeyay maadada kurkumin iyo awoodda ay leedahay baabi'inta hurka xanuunka mindhicirada ayaa lagu arkay in bukaanadii ay xaaladooda aada u hagaagtay kadib markii ay qaateen maadada kurkuminka isla markaana ay ka maarmeen dawooyinkii hurbiinta xanuunka kaleento ee toddobaad ee xakameynta dufanka waxay xakameysaa dufanka huruuddu waxay yareysaa dufanka dhiigga mana laha waxyeelo side effect dawooyinka loo isticmaalo kolestaroolka sida lipoto iyo waxay waxyeelo gaarsiiyaan kilyaha iyo beerka dhakhaatiirta ayaa haatan bukaanada ugu qortay dawooyin dabiici ah sida huruudda iyo saliidda kalluunka xanuunka halkaas waxay ku ogaadeen culimada in ay dawada loo qaato borotiinka dadka uu ku badan yahay ee side effect leedahay marka waxay qoreen culimada hadda huruudda iyo saliidda xanuunka kale baabi'iyo waxaa waaye waa xanuun baabi'iyo huruudda awoodaha ugu waaweyn ee maadada kurkumin waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyo waxaa jira daraasad Mareykanka ah oo ku talisay in huruudda lagu daweeyo xanuunka dadka gubtay qurxinta jirka ayaa loo isticmaali karaa huruudda waxaa loo isticmaalaa qurxinta jirka taasoo aada loogu adeegsado dalkeena waxay ifisaa maqaarka waxay yareysaa findoobka iyo nabraha wajiga kasoo baxa huruudda cuntada ayaa lagu darsan karaa huruudda iyadoo loo isticmaalayo xawaash ahaan
ayaa suugada ama maraqa ama bariiska lagu darsadaa. Shaaha iyo caanaha waa lagu qasan karaa. Waxay muhiim ah in qofka qaba xameetida ama iyo dumarka uurka leh ayaa la soconsiinayaa dhakhtarkooda intaynan qaadan. Dadka qaba xameetida ama haweenka uurka leh waxaa laga rabaa in ay la tashtaan dhakhtarkooda inta aysan qaadanin ka hor. Insha Allah waxaan jeclahay inaa wax un ka faa'iideen barnaamijkan maanta. aad iyo aad u mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga aan dhageysatay. Jazaakallah khair. وكسو دوينينا مرولب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان.